ما بكير قلنا سبعة دولة صوماليا ما بكير قلنا سو دولة صوماليا وحين مقشي إن مشاريع لا يرجلنا جيسك أفريقيا لمان جيسك أفريقيا وين مقشي وين بعد وين دار سوماليلاند dhaqaalaha maxaan ku raahdaa caalamka ay ugu tala gashay dawladda Soomaaliya la soo mariya ilaa shatiga dawladnimada ay haysato kadib ay fasaxdaa wixii caalamka ka yimaado waa la wada leeyahay marka waa in la qaybsado loo qaybsado waqooyi koonfur reerkiisa shalay ayagoo caalamka naga hor helay midnimadii Soomaaliya raadinayo ay keeneen madaxweynihii ma helin caasimadii ma helin marka labadoodaba la isku daro maamulana la dhaho si ay u gooyn wallahi dawladda Soomaaliya wax ay hirgelinayso Soomaaliland ma wajirto magaalada muqdisho wax ka hirgelin laadahay marka dawladda Soomaaliya waxay maqashay in qaramada midoobay ee mashaariic ka hirgelinayso qaybo ka mid ah geeska Afrika marka xogtii ma ka heshay way baxday way ku daaratay macnaha dad badan cunayo oo maraq iyo rooti maraq iyo hilib cunayo haddii aad rooti wada ka maqashid meesha maraq iyo rooti lagu cunayo rootiga ku dhex dartane waa ku daaran lahaa dawladda Soomaaliya way ku daaratay mashaariicdaanne geeska Afrika oo dhan ayaa lagu dhisayaa dib u haween waay oo lagu dhisayo iyo horumarin marka dawladda Soomaaliya saas lugta la gashay tamaayne way ku daarata maayne wax laga weydiinaya maahan Soomaaliland dawlad madax banaan waay waana mid ka mid ah dawladaha geeska Afrika ku nool waay oo la ixtiraafsan yahay oo adduunyada lama caamisho qaramo midoobay adin midowga Afrika adin wadan kasta lama caamilo marka Soomaaliyana way iskaga daaratay marka arintaasina ku daarasho waagi hore waxa jiri jirtay arin la dhahayo iyo sabar oo madaxdii hore madaxdan ka horeysay tiimkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo meel ogaanay in la fuuro ogaanay way baxa meesha tigeen sabar ay gulaan hada ku kale waxa imaadeen oo la dhaho ku daarto way ku daaranayaan kuwaanne faamino wax marka ay ka qosay maahan wax laga weydiinayna maahan waxa dhisay qaramo midoobay way wixii maqleen saasay u tageen arinta saas leeyahay waa sax ma bakir gelino sabay dawladda Soomaaliya ma bakir gelinayso dawladda Soomaaliya waxay maqashay in mashaariic la hirgelinayo geeska Afrika lamaan geeska Afrika way maqashay way baxday way ku daaratay ma aan wax loo imaaday ama dhaqaale oo dawladda Soomaaliya ay bixinayso ama wax laga weydiiyay maahan dawladda Soomaaliya wax ma laga weydiinin maana lagu casuumin ida baxday wasiir ay u dirsatay meesha ay tagtay waa iskaga daaratay Soomaaliland wadan madax banaan waay shilin Soomaaliland gooda ka shaqeey aan leeyihiin dawladda leeyihiin booliis leeyihiin wax walba leeyihiin waxaana meeshaas madaxweyne ka ah Cabdiraxmaan Ciro oo madaxweyne sharci haysto oo lagu soo doortay haysto mbaamino dadka Soomaaliland way taageersiin way jecel yihiin dad oo isku filan oo horumar sameey oo hor u socdo waay hooyada Soomaaliland ku dhalatay ama ku nool nabad ay ku nooshahay nabad ay ku dhalatay laakiin hooyada Soomaaliya joogto nabardada ku dhaloosa dhibaato haysato barakicina loo sii daray caburina loo sii daray dhibaatooyina loo sii daray oo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee waqtigiisa dhamaaday Sheekh Maxamuud dhibaatooyin u sii geesta kuwaasna dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda jecel horumar ay gaareen amni waay nabad waay mbaamino marka dawladda Soomaaliya way ku daaratay ma aan ida shaqana ma kalahan shaqana kuma lahan cid wax ka wadiinaysa ma lahan mbaamino dadka Soomaaliland iska leh ayakaana wadankooda leh wayna ku maasan yihiin sida wanaagsan ee nabadda u shaqeeyaan anaga Soomaaliland waa ku taageersanahay hor u socdaaleyna Soomaaliland laakiin aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya maamul goboleedyada ka jiro dhaqaalaha dunida la ka yimaado qolo walba waxa loo soo mariyaa dawladda wayna fasaxdaa marmar qaar way ku adkaysaa Puntland hadda intii dani Axmed Xasan Sheekh isku dhacsanaayeen dhaqaalaha way ka xayirtay laakiin Soomaaliland dhaqaalaha maxaan ku raahdaa caalamka ay ugu tala gashay dawladda Soomaaliya la soo mariya ilaa shatiga dawladnimada ay haysato kadib ay fasaxdaa mashaariic caalamka ay maxaan ku raahdaa ku deeqo dalka Soomaaliya waaye hargeysana waxay ka mid tahay Soomaaliya ka mid tahay ilaa hadda go'itaankooda qaramada midoobay iyo caalamka la islaama aqoonsana bal waaba laga soo horjeedaa marka mashruucyadaas mid ay maxaan ku raahdaa inay dawladda inay inta ka dirto shaqaalo iyo maxaan ku raahdaa kambiliyo ama wufuud oo xagga ka shaqeynaya ma aha dhaqaalahaas iyo ku wareejinaysa reer Hargeysa ayaga u tashanayo marka taasaan anigu arkaa hadii wax ay jiraan sidaas si la mid haddii maamul goboleedyadan kaleeto hadda Hirshabelle kale markii mashruuc laga fulinayo dawladda agaasimayaal meesha uga magacaawda laakiin Puntland iyo Somaliland iyo Jubbaland
uguma magacaawdo ciidamada ka tirsan hadda fiiri tusaale yaraan ku siinaa ciidamada ka tirsan jubbaland oo dowladda danab la dhahayo maraykanka taageero dowladda looma soo mariyo toos madaxda meeshaas madaxda ka noqonayso axmedooba magacaabo puntland sidoo kaleeto hadda ciidamadu way soo afjartay ciidamo aan dal puntland ahayn marka mawduucan ku soo noqdo hargeysa mashruucan oo dhaqaalahan lagu deeqay ee dowladda loo soo marinayo weligeeda la soo mari jiray deeqdaasna si toos ah bangiga ugu dhacaysaa ciraa u tasho doono bal waxaaba laga yaabaa ciro inuu ku gacan seero ilaan hadda aqoonsiyo uu helay oo Israa'iil uu ka helay dalal badan uu ka rajaynayaa marka haddii wax isbeddel fila Soomaaliya isbeddel ay la imaan weyso Somaliland way ku daysay wayna tagaysaa midda kale waxay ogaataa laascaano dhaqaalihii maalmood la qaybinayay dowladda federaalka ma awoodin waxaa la yidhi hargeysa ka mid tahay beesha caalamka meeshaasay ku tirisaa laascaano waxay ka mid tahay dhaqaalahoodu wuxuu yaallaa hargeysa ha u doonato marka haddii dhaqaalaha maxaan ku rahaa dowladda federaalka ay hargeysa ay u qoondaysay mid ayada jeebkeeda ka imaaday ama cashuurta muqdisho laga aruuriyey ma aha waa dhaqaale ka yimid beesha caalamka xaqoodiina way heleen waxaana laga rabaa ma haysan karto rasiidaa laga rabaa rasiid iyo dukumiintiyaa laga rabaa bangiga laga rabaa oo Somaliland ay soo saxiixdo marka taasaan u arkaa sidaan qiyaasayo wixii markaas oo maxaan ku rahdaa oo ziyaadaan u arki doonaa hadduu ciro iska diidana oo yidhaah anigoo madax bannaana dowlado badan ay aqoonsadaan oo dowlado madax bannaan ay noqotona waan arki doonaa ayadana dabcan waa inay aqli cusub iyo fikir cusub iyo maxaan ku rahaa hindiso cusub ay la imaataa fila Soomaaliya qaabkay wax ku wado Somaliland iskaba dhaafe qolo badanaa goy doonto jubbaland iyo puntland iskaba dhaafe kuwa kalaa goy doono marka waa inay hal fikirkii ay u fikirayso waa inay wax ka beddeshaa nimankaas soomaalinimada ma necba yuhuud jaceylna kama aha laakiin maxaan ku rahdaa neef gowracan geeda kama waabto waa laga badbadiyey waxaa ugu darneed EVC baalkii la dhahayaa ugu darneed barnaamijyadaasay ka gubteen marka nimankaas walaalehen yaa la fogeynin hadallada oo argagaxa ama culculus ama maxaan ku rahdaa naceebka abuuraya ha laga dhowro waa walaalehen yuhuud jaceyl maaha middeeda kaleetana waxaan ani jeclaa lahay madaxweynaha iyo dadka iliidka Soomaaliya u soo jeedi lahay reer Hargeysa shalay ayagoo calanka naga hor helay midnimadii Soomaaliya raadinayo ay keeneen madaxweynihii ma helin caasimadii ma helin marka labadoodaba in la isku daro maamulana la dhaho si aynu u go'in muddo kadib cuqdadu waa iska dhammaanaysaa marka dambeetana waxay imaan doonto in maxaan ku rahdaa qofka ugu mudan Soomaaliya oo dalka hogaamin karo in loo dhiibo qabiilka hore baa ahaad ilaahay uma jareer ahaado taasaanu kula soo jeedi lahaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waa soo dhaweynaya dowladda Soomaaliya Somaliland wali ictiraaf ma helin sidaa daraaddeed shaambadii magaca Soomaaliyeed wax lagu soo qaaday caalamka laga soo qaaday muqdisho taala marka waa in ummadda Soomaaliyeed loo xaq sooro oo waa soo dhaweynaya diidmada Puntland way diidantay oo haddana taasoo maanta ciidankii maanta xasan sheekh ma digi karo marka diidmadu wax weyn ma aha laakiin muhiimadu waxa weeyaan inay wali ku jirto calaamadii samagahayd ama magacii Soomaaliyeed qaramada midooba hal meel fadhido taasuma muhiima caalamku wixii macaamilo waa halgeeda laakiin wax ictiraaf wali ma jiraan wixii caalamka ka yimaado waa la wada leeyahay marka waa in la qaybsado loo qaybsado waqooyi koonfur